waxaan rabaa inaan hadalka ma badinayo gudoomiyaha ayaa inta kale oran doona waxaan ku soo dhaweynayaa gudoomiyaha Xisbiga Kulmiye laanta Sweden Cabdirisaq Xaaji oo isagu kelmadiisa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله محمد ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد marti sharafta qiimaha badan haweenka iyo marwooyinka hooyooyinka iyo hablaha dhalinyarada iyo inamada runtii dadka sharafta iyo qiimaha leh magaalada Stockholm caasimada dalka Sweden nagu soo dhaweeyay runtii munaasabada nagala soo qayb galay aad baa u mahadsantihiin waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka waayeel mudan iyo marwaba oo runtii halkaa iga muuqdaan hooyooyin waaweyn oo hooyashinow ay ka mid yihiin hooyooyinka kale aad baan idin salaamayaa ilaahayna waxaan ka baryaa subxaanahu wa tacaala inuu qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland guuleeyo inuu shacbigiisa guuleeyo in ilaahay subxaanahu wa tacaala madaxda inoo hagaajiyo in ilaahay subxaanahu wa tacaala madaxweynaha inoo barakeeyo in ilaahay subxaanahu wa tacaala ka dhigo kii qarankeennan iyo mas'uuliyadda weyn ee aynu igmanay oo u fududeeyo cadaalad iyo horumar iyo sinaan iyo wanaag fara badan oo horseeda ilaahay baan u weydiinaynaa subxaanahu wa tacaala inaguna insha Allah bismillaahi kariim sidii aan u dooranay baan ugu shaqeynaynaa ugu horeyn ilaahay baan mahadnaqayaa inuu inaga dhigay dad islaam boqolkiiba boqol inuu inaga dhigay dad dhaqan leh inuu inaga dhigay ilaahay subxaanahu wa tacaala dad karaameeya haweenkooda aad iyo aad baan ilaahay subxaanahu wa tacaala aynu ugu mahadnaqaynaa intaa kadib waxaan doonayaa inaan runtii dareen farxad leh aan nagu soo dhaweyseen darteed aan idinka mahad celiyo reer Stockholm
oo ifraax xaaji October iyo hablihii faraha badnaa ayay namadii arrintan kala soo shaqeeyay munaasabaddan qiimaha Laba aad iyo aad baa u mahadsantihiin bahda saxaafadda saaxiibkay Barkhad iyo Yuusuf aad iyo aad baan iyagana u salaamaya salaanta kadib runtii xisbiga kulmiye waa xisbi facweyn waa xisbi qarankani runtii wax badan ka filayo wax badan soo qabtay waa xisbi aragti iyo hadaf dheer loo aasaasay waa xisbi ay hogaamiyaal qiimo leh kala dambeeyeen waa xisbi qarankana gaadhsiiyay tallaabooyin la taaban karo oo runtii maanta la is odhan karo Somaliland waxay qaaday ama runtii muddooyinkii u kala dambeeyay xukuumadihii u kala dambeeyay ay gaadhsiiyeen waxa la is odhan karo waxaynu u soconnaa jid munaasib ah oo qarankeena uu guul ku gaari karo sidaa darteed laamaha xisbiga kulmiye ee dibaddu waxay qayb ka yihiin oo la shaqeeyaan oo loo wakiishay inay siyaasadda iyo barnaamijka iyo hadafka iyo aragtida guud ee xisbiga kulmiye iyo xukuumaddiisa ay wakiil uga noqdaan gudaha iyo jahriyada dabada ee taageerayaasha xisbigana ay isku xidhaan runtii taas ayaanu annaguna muddo ku soo shaqaynaynay imikana aanu ku shaqaynaynaa insha Allah bidmillaahi kariim ilaahay subxaanahu wa tacaala inta uu aad noo doorateen oo ku eeg muddadii naloo doortay oo 2 sanadooda oo aan maalin dheerayn runtii haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu fursadda waqtiga uu noo saamaxo uu na siiyo waxaanu jecelahay runtii haddaanu nahay hoggaanka cusub ee kulmiye Sweden inaanu ka shaqeyno midnimada iyo walaaltinimada iyo qadiyadda shacbi weynaha jamhuuriyadda Somaliland ma aha ta kulmiye oo kaliya waxaanu ku dadaalaynaa inaanu runtii isku garab taagno qarankeena baahiyaadka uu leeyahay ee siyaasadda arrimaha dabadda ee dalkeena ee maanta xisbiga kulmiye uu ku hogaamiyo madaxweynaha laga soo doortay ee haatan mudane Muuse Biixi Cabdi insha Allah bidmillaahi kariim taas ayaanu anaguna qaybtayada ka geysan doonaa waxaananu ka bilaabi doonaa walaaltinimada isu soo jiidka isdhexgalka iyo midnimada shacbi weynaha reer Somaliland ee ku dhaqan dalka Sweden waxaanu ilaahay subxaanahu wa tacaala ka baryaynaa waa mas'uuliyad culus inaan arintaasi uu ilaahay noo suurto geliyo idinkana waa idinka codsanaynaa inaan nagala shaqeysaan insha Allah bidmillaahi kariim marka ugu horeysa xubnaha iyaga la doortay gudidii ma dhamaystirna insha Allah bidmillaahi kariim gudidii gobolada iyo gudida guud ba waa la dhamaystiri doonaa structure-kii laamaha xisbiga ee dibaddu ay hore u lahaayeen rasmiga ahaa baanaanu ka dhigi doonaa insha Allah bidmillaahi kariim waxaananu noqon doonaa kuwa shacbigooda ka dhex shaqeeya oo la mid ah oo kuraasta la fadhiista maanta kadibna halkaa ma soo fadhiisan doonee dhexdiinaanu fadhiisanaynaa waa ballantaas insha Allah bidmillaahi kariim maadaama aynu wadan dabadda ku noolahay waxaynu leenahay runtii oo aynu qarankeena iyo dalkeeni iyo dawladeeni isku gargab taagi karnaa fursado badan oo aynu qarankeena ugu heelinayno oo dhinacyo badan leh oo ah dhinaca siyaasadda diblomaasiyadda iyo inaga lafteednu fakarkeena iyo aragtideena iyo waa aragnimada aynu wadamada horumaray ka dhaxalo inaynu dib ula noqono oo ku contribute garayno
oo aynu isku garab taagno horumarka dalkeenii ka socday baaxadda leh oo qof waliba uu ku talagalo aragti iyo fakar wixii uu hayo inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala si uu jaanis ugu siiyo marka uu qarankiisa isagoo doonayo inuu wanaag ku saacido in ilaahay subxaanahu wa tacaala miisaanka xasanaadka u saaro oo walaaltinimada ummadiisa iyo walaaltinimada shacbi weynaha reer Soomaaliland ka shaqeeyo fursadaasaan suurto gelinaynaa waxaana ka bilaabaynaa dhalinyarada aqoon-yahanka ah caruurta wadankan ku dhalatay kuwa wax ku bartay kuwa ku koray inaanu shiraru qabanno inaanu ku soo casuuno inay iyagu isbartaan iyo ifan xisbiyo kala duwan ah si ay u ogaadaan inay xisbinimada qarannimada jamhuuriyadda Soomaaliland ay ka weyn tahay oo ay u gartaan waxay madaxweynahooda ku taageerayaan ee xukuumadooda ku taageerayaan iyo waxa xisbiyadu ku kala duwan yihiin qof kasta oo Somalilander waa ku waajib inuu qarankiisa isbarbar taago oo uu saacido maalinba awrba dhaamiya maalinba hogaamiya jooga maalinba madaxweynaha la doortaa kursigu laba nin ma qaade maalinba ninba ku fadhiye ninka maalinta jooga in waxna la iskaga mid ahaado waxna lagu kala duwanaado oo aanay xisbiyadu noqonin kuwa la yiraahdo hebel waa wadani iyo hebel waa kulmiye iyo hebel waa ucud waxaan ku kala duwanay halkan aan ku haysanaynaa xisbigeenana waxaan isku dayayaa anigu markaan gudoomiyaha kulmiye ahay inaan wadani intaan shaashada u galo taageerayaashiisa inaan fakarkayga iyo mabda'a xisbigayga aan ku shubo taasina ii suurto gali maysa haddaan cadow ka dhigto taageerayaasha xisbiga wadani waayo cadowgayga maaha waa walaaladay fakarkayga ayuunbay aaminsan yihiin sidaan kulmiye u aaminsanahay mid kale ama ka ucud aaminsan yihiin runtii inaga doorkeenu waa kaa waxaananu ugu horaysiinaynaa runtii inaanu gobolada dalka oo dhan marno inaanu taageerayaasha la kulanno inaanu jaariyadda reer Somaliland la kulanno guud ahaan inaanu ugu ifan xisbiyada kala fakara la wadaagno oo aanu qayb ka noqono in loo midoobo danta qaranka oo ay nagu ixtiraamaan walaalahayada xisbiyada kale maalintooda ay iman doontaan oo anaguna ku ixtiraami doonaa insha Allah bidmillaahi kariim xisbiyadu haddii cadow isku yihiin waa ogtihiin xisbiga kulmiye waa xisbi facweyn oo la aasaasay 2002 bishii May baa la aasaasay waxaa aasaasay hogaamiye runtii aragti dheer madaxweynihii hore qaranka mudane Axmed maxamuud aadan wuxuu xisbigu ka soo qayb galay doorashooyin kala duwan dhammaan doorashooyinkii Soomaaliland ka dhacay mid walba ama kaalinta koowaad buu ka galay ama kaalinta labaad waxaana suurto gelinayay hadafka iyo aragtida mar walba diyaarka u ah ee shacbigiisa u cuntamayay ee loo soo bandhigayay ay dadku dantooda ka arkayeen bay ku dooranayeen iskamay dooran madaxweyne Muuse iyo madaxweyne Siilayo shacbi weynuhu iskamu dooranin ee waxa lagu doortay wixii ay ummadda soo hordhigeen baa lagu doortay runtii haddii ay dadku inta badan aragtida xisbiyada u yaqaanaan in wax badan lagu kala duwan yahay saalan idin soo qaadaya anoo xisbi weynaha imika Soomaaliland ugu awooda badan dhinaca mucaaradka wadan la yiraahdo waxaan aqaanaa wax qabadka xisbiga kulmiye inuu ka mid yahay oo de kulmiye intuu xisbiyada furay ayaa wadani ka dhashay oo soo baxay dabadna xisbi qaran buu noqday dabeetana waxa weeyaan waxay ahayd hadii la doonayo ay dadka qaar sida ay aaminsan xisbadu cadow isku yihiin fursada lama bixiyeen in waliba isaga meeshiisa haysan lahaa ma ogtahay marka xisbiyada waxa loo sameeyay hadii maanta xisbiga iyagu uu ka soo bixi waayo mas'uuliyadda u igmataan inaad ka diga rogataan oo mid kale u wareegtaan waa fursad shacbiga la siiyay weey laakiin ma aha oo looma samaynin inay shacbigu isku colaadsadaan oo loo arko oo aynu qoqob iyo qoolo ka dhaxalo taa looma samaynin waxa weeyaan ragga hogaamiya warag saaxiiba isku mashlasa
dadka iyaga ayaa isugu jecel isuguna dhow isku dan ah inaynu danteena garanno haddaynu shacbiga nahay waajib weeye oo maalin bay fursadaadu joogtaa waa maalinta aad adigu codkaaga bixinayso ee maalinta aad doorato adigu wixii kii aad u aragto inuu maaragtay munaasib ku yahay xisbiga kulmiye qarankan wuxuu gaarsiiyay tallaabooyin aad u waaweyn oo ay ka mid tahay runtii tii lagu doortay todoba sannadood intuu dalka xukumayay haddana mar labaad codkii jamhuuriyadda Soomaaliland ugu badnaa 51% lagu doortay madaxweynaha haatan mudane Muuse Biixi Cabdi iskama imanin waxay ku timi hadafka iyo aragtida iyo maaragtay barnaamijka hogaamiyaha xisbigu soo bandhigay iyo waxqabadkii iyo taariikhdii hore ee xisbiga ayay arintaasi ku timi wuxuu ahaa xisbiga istusay awoodda iyo shacbiga maaragtay Somaliland kartidooda iyo awoodooda ay ku soo bandhigi karaan ee ay dalkooda iyo dadkooda ugu shaqeyn karaan ee ay si madax bannaan wax ugu qabsan karaan ee haddii eeba kuu roon yahay wadooyinka iyo jidadka iyo iskuullada iyo horumarka iyo xanaanooyinka iyo goobaha fara badan ee arrimaha bulshada laga shaqeeyo oo ay qayb ka ahaayeen dadweynaha reer Somaliland wuxuu ahaa xisbiga kulmiye oo uu imikana ku shaqeynaya horena uu soo shaqeeyay inuu shacbi weynaha reer Somaliland door muhiim ah uu ka geliyay siyaasadiisu inuu ka ciyaaro kaalinta bulshada caalamka una door ku yeesho oo dalka Somaliland maanta isagoo wali ictiraaf caalami ah haddana loola macaamilo oo loola dhaqmo si uu maaragtay dawladaha dunida ka jira waa arrin aan si tayala ku iman waa arrin ku timi karti iyo hogaamin iyo hufnaan ku timi weey waxaan rajaynayaa xisbigani kulmiye la yiraahdo waa xisbi aragti iyo mabaadi leh mar walbana qof kasta oo xubin ka noqonaya ama xil ka qabanaya haddii aanu garanaynin xisbigaas meesha u socdo waa laga yaabaa xoogaa inuu ku jahwareero oo ku dawaqo oo marba dhinaca dadka kaga yimaado dadku fahmi waayaan laakiin waa xisbi aragtidiisu ay ku wajahan tahay boqolaal sanadood inuu dalkan hogaamiyo insha Allah bidmillaahi kariim hogaamiye kaliyana looma aasaasine sidii shalayta madaxweyne Siilaayo oo madaxweyne Muuse oo bedelay ayay kuwa kalena u iman doonaan insha Allah bidmillaahi kariim oo qaarkood yihiin kuwa dhabarkiina ku jira waa xisbi aragtida ay hadafka leh xisbiga kulmiye hadaynu naalaanta dabadda ee Sweden ujeedka koowaad ee laamaha dabadda xisbigu ugu yeeshay waxa weeyaan inta badan ma codayno laakiin waa inaynu gacan siino siyaasadda arrimaha dabadda dalka isla markaana aynu qayb ka noqono horumarka dalkii ka socda annagu haddaanu nahay hoggaanka cusub ee laanta xisbiga kulmiye ee Sweden waxaanu samaynaynaa insha Allah billaahi kariim isdhexgal iyo kulamo aan ahayn kuwa sidan oo kala ah oo dad intaanu halkan soo taagnay aanu idila hadalay kuwa fakarkiina la maalayo dadka aqoonyahanka ah ee wadankan ku dhashay ama wax ku bartay ama wax ka qabsadayna aanu isku dayno insha Allah billaahi kariim intaanu kulamo u samayno oo aanu u samayno xiriidho iyo qaabab maaragtay aanu wadankii fakarkooda ugu gudbino oo even aynu gaarsiin karno inaynu nidhaahno sanadkii intaas oo qof ayaa wadankan labada bilood ee fasaxa ay galaan ka baxaya oo tagaya Somaliland oo ka soo shaqeynaya oo wixii ay dalkan horumarka iyo maaragtay aragti ahaan dalkeenu u baahan intay qaadaan la tagaya dawladeena insha Allah billaahi kariim aynu ka suurta gelin doonaa inaynu dadka noocaas iyo muddada ay hawlaha gudanayaan inay iyaguna gacan ka siiyaan wixii makaaniyada ee markaas suurtagal ah ee dadkaasi lagu saaciday insha Allah billaahi kariim hadalku iska dheeraada waxaan doonayaa inaan kelmadda kulmiye inta kaga baxo Somaliland waa dalweyn oo taariikh dheer leh oo aan ahayn taariikhdiisu
oonay hayn taariikhdiisu ka soo bilaabin koob iyo sagaashankii waxaan doonaya caawa inaan halkan ka idhaahdo dalka jamhuuriyadda Somaliland waa dal ka mida dawladihii ugu waaweynaa Afrika ee ugu horqaatay xorriyadihii ee ay kaga baxayeen gacantii isticmaalka 26 Juun markii aynu xorriyaddeena qaadanay waxaynu runtii si dhayaal ah oo aynaan ka fiirsan inagoo markaa aragtiyo hadaf kale oo isla magaca ummadda Soomaaliyeed inaan midaysaan aynu qadiyadeena uga tagnay isla markaana aynu ugu hungownay inaynu tii koowaad ee walaalaheen ahayd aynu wax ku darsanay inay noqoto bahal dadka cuna oo aan garanayn Soomaalinimada iyo ehelnimada iyo wada dhalashadu waxay tahay hadafkeenu ula soconay sidaa darteed xisbiga kulmiye isagoo taariikhda hore haya ayuu mar labaad ka digayaa oo u taagan yahay oo hogaamiyaashiisu yihiin kuwii gacanta ku soo celiyay imikana qaalinka ku maamulaya oo aragtideena iyo ujeedadeeduna tahay inaanu qarankeena halis dambe mar dambe aanu ku dhicin waxaan isleeyahay Somaliland dalkii la oran jiray Somali Republic markii aynu wax isku darsanay Soomaaliya iyo Somaliland baynu ahayn qolada koonfureed ama Soomaaliya waxayna yiraahdaan inaguna aynu aaminay inaynu Soomaaliya ka goonay arinta waxaan caawinayna hoosta ka xariiqno nafaifa wali ma jiro qof Somalilander ah oo noqday muwaadin u dhashay Soomaaliya sababtan idin sheegaya dalkii Somaliland la oran jiray 60kii ka qaatay xorriyadda Ingiriiska qolada koonfureed in badan magaceena way dhalan bedeleen inaguna waynu rumaysanaa Somaliland baa la oran jiray Somaliland British Protectorate bay ahayd iyaguna Soomaaliya Itaaliya ay ahayd waynu isku darsanay markii aynu isku darsanayna waxa ka dhashay dawlad la yiraahdo Somali Republic way kala duwan yihiin Somali Republic iyo Somali aad iyo aad bay kala duwan yihiin 1970kii ama markii dawladii ka caan ku dhalashay bay dimuqraadi ku tagtay Somali Democratic Republic 1991 ayay dawladdaasi burburtay waxaynu dib ugu noqonay Somaliland iyaguna waxay dib ugu noqdeen Soomaaliya oo federaal iyo hadii ku rooy maamul goboleed iyo dastuur cusub iyo structure subayna shaqo ku lahayn ay galeen ana arrinta waxaan aaminsanahay labada dawladood iyaguna dib bay ugu dawladda ugu gaareen inaguna dib baynu teen ula soo noqon xisbiga kulmiye madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland haatan mudan Muuse Biix Cabdi waxaan ku bogaadinayaa aragtidiisa ahayd hadiiba ay dhacdo in la wada hadlo Soomaaliya waxaanu ku wada hadlaynaa taariikhdayadii ka horeysay 60kii marka ay qiraan baanu soo fadhiisanaynaa arinta madaxweyne Muuse Biix Cabdi waan ku gargab taaganahay waa kula shaqaynaynaa waa ku bogaadinaynaa runtii hil baana nagu nahay xaqiiqatan waxaynu u baahanahay inaynu fahanno mas'uuliyaddu waxay tahay mas'uuliyaddu maanta 2 sano aniga gudoomiyaha xisbiga Kulmiye laanta Sweden lay doortay dadka kamalihi kama mudni kama fiicni kama aqoon badni shakhsi muwaadin oo Somaliland oo xaq u lahu baan ahay inuu gudoomiye noqdo waxa anigana xaq la igu leeyahay maadaama oo arinta la gartay oo cisiga iyo sharafta iyo karaamada ummadaydu u siisay oo bahweynta xisbiga igu siisay inaan ixtiraamo oo aniga runtii muwaadina oo la jecel kale qarankayga iyo ummadayda iyo xisbigayga inaan sida ugu daacadsan aan isugu dayeynaan u shaqeeyo haddii aan kari waayo aan idhaahdo walaalayaal mas'uuliyadii cuslayd way shaqeyn weydo waan wadi kari waaye maanta hebel baa inaga mudan ama heblaayaga inaga mudan ku soo celino labada sano wixii ka badan labada sanadood ee nala doortay maalintiina doortay maalinteeda waa ballan inaanu shirka xisbiga kulmiye ee Sweden aanu qaban doono haddii Ilaahay yiraahdo isagoo leh dhaqaale isagoo leh structure isagoo leh qaab dhammaystiran insha Allah bismillaahi kariim oo ah wax lagu faano waxaan runtii aan jecelahay inaan kelmad kooban ka idhaahdo iyadana
xaaladda doorashooyinka dalka ka jira ama ku soo wajahan xaaladaasi dawladda Somaliland muddo 2 sano ku dhawaada ka horba madaxweynaha qaranku uu diyaariyay wixii kaga aadanaa mas'uuliyadda dhinaca dhaqaalaha iyo wixii la midka ahaa caqabada ugu weyn waa caqabad wadareed maaha caqabad xisbiga kulmiye u gaara caqabada ugu weyn hadda taagana waa ta komishanka doorashooyinka qaranka taasina waxa weeyaan waa ogtihiin oo 2 sanadood bay inaga lumisay in la yiraahdo war hebel bedelo hebel ku bedela nin xaq u leh waqtigiisii inuu shaqeeyo maantana ay ku tusayso inay ahaayeen kuwii saxda u shaqeynayay la yidhi dib ha loogu noqdo yadii waxaa leenahay arrintaa hore ha loogu socdo madaxweynahana ha lagala shaqeeyo cid kastaana ha u soo diyaargarowdo fursadda ay shacbiga iyo qarankaba ay danta ugu jirto ee karaamadeena iyo cisigeena iyo sharafta dowladnimadeennaba iyo dimuqraadiyadeennaba qaybta ka ah hadalka waan dheereeyay waxaan doonayaa inaan halkan kelimad uga diro dhalinyaro meelaha Facebook wax ku qorta oo runtii inta badan aan is idhaahdo tolow madal aan Somalilander ahayn oo dalka lagu beerayba dhalinyaradaasi waxay galagaran laayihiin Soomaaliya iyo Somaliland qaran karimaha qaran kaftan ku yimi qaran karimaha qaran runtii si dhayala xorriyadiisa iyo calankiisa dib loogu soo celiyay qaran karim waa qaran nafo badan iyo geesiyaal badan oo mudawaniyo marwooyina dhiigoodii qaba ubad iyo dhalaan ay naftoodii ku waayeen oo si dhayal ah ku dhalanin weyn suurtagal ma aha ma qaadan karno ma aqbali karno wax la dhageysan kara ma aha maanta inaan Facebook ama inaan Facebook intay wax ku qorto Somaliland aan dacaayada aan jirin ka sheegta madaxweynaha qaranka waxaan ku garab taaganay siyaasadiisa iyo maaragtay qorshaha guud ee dawladda ah in gacanta adag lagu qabto dadka noocaas ah Somaliland way jiraysaa way jiri doontaa biidnillaahi kariim si tayalana dhiifaha noocaas iyo dadka intaalka daran loo adeegsanaya ma aha kuwa dhaawac gaarsiinaya insha Allah biidnillaahi kariim waxaan halkan aan runtii aan jecelahay inaan ka soo dhaweeyo hadallo inta badan dadka qaar ay si ka macnaha uu leeyahay aan dareemi karo maalin dhaweyd baa waxaa ka hadlay miidiyaha nin la yidhaahdo Cabdirisaq Gulwade oo ka mid ah saraakiishii dawladdii runtii dhibaatada badan u geysatay dadka Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan Somaliland laakiin isaga oo leh hadalladii uu maaragtay markaa ku tiraabayay ay ahayd in wixii ka dhacay Somaliland ay ahaayeen wax sax ah waxaan isleeyahay ninkaasi Somaliland wuu u heeliyay waxaanu wax tusay dhalinyarada maanta caqligooda iyo maankooda aad moodo shilimaad in lagu gatay kuwaas oo xaqiiqada u sheegay waayo meesha ay u socdaan dadka jooga waa kuwa weyn madaxweynaha Soomaaliya oo maalin dhaweyd si la kaca oo aad kaftan uu ku jiro oo isagoo dhoola cadaynayo qoslaya doonayay inuu yiraahdo waxaan apologize garaynana Somaliland wixii ka dhacay ee loogu geystay awoodii dadka Soomaaliyeed marka ay lahaayeen runtii apologize waxaan noogu fulin inaan bariyo kula soo noqon Somaliland ee aanu cududayada iyo xoogayada iyo caqligayga dib qarankayaga uu la soo noqonay taasaan isku mahadinaynaayo cid naga apologize garaysa uma baahin isaguna wax weeyaan على قرن كيو مدة لو دورت وشقة أصدقك الصومالية دبعتها كسارة مسؤول أومس وحنكسو قلنا نذيا لانت حسبي Kulmiye سويدن وخلاف يدبعتها ودحية ذياله ما يشلو قد عصب على Doortay ويدعذا إن مررك قار marka isbedelay maadaan ay xoogaan turxaama ka dhasho waxa loo oran jiray muddo 2 sanaaba waxay nahaystay turxaantii ka dhashay doorashadii madaxweyne Muuse Biixi lagu doortay oo muddo ay nala jiidatay
maanta kulmiye Sweden gudidii hore la doortay ayaa waxa suurtagal ah inay saaxiibada qaarkood oo waliba muddo dheer oo aan anigu isleeyahay haddaad muddada shaqayn lahayd madaxweynaha aad ku noqon lahayd kursiga ku fadhiyay 7 sano iyo 18 sanadood waa muddo madaxweynaha ama siyaasadda lagaga baxo weeye waxaan isleeyahay khilaaf ana gudida cusub waxaanu diyaar u nahay wax kasta oo midnimada xisbiga iyo wada jirka xisbiga ku jiro runtii mas'uuliyadda horena waxaanu isleenahay waxay sharaftu ugu jirtaa in ay sida karaamada lahayd ee loola shaqeeyay ee xisbiga u karaameeyay ay xisbiga u karaameeyeen ma aha shakhsiyaad inay karaameeyaan inay xisbiga u karaameeyaan oo doorkoodu waxa weeye inay qaataan oo muddadii ummadaasi ay daba joogtay ee runtii ay hoggaankooda ku aamintay aanay ugu abaalgudin inay yidhaahdaan xisbiga kulmiye uu burburay xisbiga kulmiye la Sweden ma kala jabin waa gudidiisii cusbayd way shaqaynaysaa gudidii gobolladana waa la dhisayaa insha Allah bismillaahi kariim shirka noogu soo horeeyana waxaanu qaban doonaa gudidoo dhammaystiran ku shaacino 22 bisha March waxaanu ka dhici doonaa magaalada iyo Tabori insha Allah bismillaahi kariim waxaan kaloo halkan ka cadaynayaa oo maalin 24 bishii hore laga iclaamiyay shir aan waxba ka jirin oo lagu magacaabay shirweynaha xisbiga kulmiye dhici doona September sanadkan shirweynihii xisbiga kulmiye Sweden wuu qabsoomay 18 bisha December ee 2019 waxaana lagu doortay hoggaan cusub insha Allah maalinteedana diyaar waxaan u nahay inaanu si sharaf iyo karaamo iyo cisi ku jiro aanu anaguna kiimid la mid oo ka wanaagsan oo ka sharaf iyo karaamo badan oo anagu soo celinay wixii aanu dhibteen inaanu qabano idamka Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ku soo gabagabeynayaa oo aan jecelahay oo labadayda saaxiib ay hortaagan ugu horeysiinaya bahda meediyadu waa rukun weyn oo qarankan kaalin weyn ugu jira xisbiyada qaranku waa rukumo waaweyn oo qarankan kaalin weyn ugu jira sharaf iyo karaama ayaan u haynaa bahweynta saxaafadda runtii waxaan jecelahay inaanay ku nuuxnuuxsanin inta badan oo ay kala saaraan dhaliishiga xukuumiga ah ee dawladdu leedahay iyo qaladaadka shaqo ee xisbiga kulmiye malihi wax walba uu saxay qaladaad fara badan baa jira way dhacayaan waanay dhici doonaan waayo qarankani horumar aan caadi ahayn buu ku socdaa meel shaqa ka socotaa qalqalooc iyo in waxyaabo laga talaabsadana ay ka yimaadaan war dhaliisha waa laydin ogeeyahay inaad sheegtaan laakiin ta qaranka magaciisa iyo dawladnimadiisa lidiga ku ah ilmaada rayaal ka daaya oo naftiina iyo dalkiina iyo deegaanadiina u la jeclaaba oo dawladnimada iyo calanka jamhuuriyadda Soomaaliland ee tawxiidka leh inoo ilaaliyo xisbiyada mucaaradka waa madaxweynayaashii ninkoo hadduu mar hal madaxweyne u tartamo oo uu heerkaa soo gaadho qarankan maamuus iyo sharaf iyo karaamo ka mudan yahay ixtiraam weyn buu ku leeyahay haddaanu kulmiye nahay xisbiyada kale waa ixtiraamaynaa runtii weliba waxaan jecelahay haddaanu Sweden joogno inaanu wada shaqayn iyo runtii aanu tusno dareen anaga kulmiye naga yimaado maadaama aan mas'uuliyadda qaranka hayno oo aan ummadda isugu soo jiidayno oo aanu wax la sheer garayno oo aanu shirarkayaga ku casuuno oo aanu fakara la wadaagno haddii aaba ku roo yahay doodooda macquulkaana aanu dhageysano oo haddii aaba ku roo yahay dee qarankay wax u goynaysaayo haddii kulmiye keligiis dhageysto waxaa laga yaabaa waxay kaga qurux badnaanaysaa oo xisbiyada mucaaradka loo sameeyay inay gadolooyinka dhaliisha ah ee xukuumaddu yeelatay buuxiyaan marka ilmaada reer dhaliisha aan ku ekaano oo ta xukuumadda ku ekaado oo ha ka dhigina dhaliisha iyo tallaabooyinka aan qaadaysaan yaanay noqon kuwa qarannimada iyo dawladnimada jamhuuriyadda Soomaaliland wax yeelaya waan soo gabagabeynayaa mar labaad iyo mar saddexaad baa mahadsantihiin waxaan sidii xogayo halkan ka yidhi aan halkan ka ballan qaadiyaa xisbiga kulmiye lafdhabar waxa uu ah haweenka iyo dhalinyarada markale ku celinayaa xisbiga kulmiye waxaa lafdhabar u ah haweenka iyo dhalinyarada
hooyooyinka waanu cisaynayna haweenku madaxay noo saarayihiin aad iyo aadna waa u mahadsantihiin ilaahayna subxaanahu wa tacaala waxaan leenahay Somaliland ha noolaato Somaliland ha noolaato waa seexateen Somaliland ha noolaato Somaliland ha noolaato jiritaanka iyo midnimada iyo qarannimada Somaliland baa sharafta kulmiye ah annagu haddaanu kulmiye nahay midnimada ayaanu horraysiinaa ummadda iyo qarannimada Somaliland danta kulmiye tada qaranka ka weyn kulmiye qaranku shaqeeya idinka doorsay waa shaqaaloodii yahay aad baa u mahadsantihiin farxad badan baanu idin haynaa waa idin bogaadinaynaa waa mahadsantihiin